السلام عليكم أصحاب الصور دوادة. مدحوينه ترامب oo caawo ka duulay Mareykanka kuna wajahna magaalada Davos ee wadanka Switzerland halkaasi oo shirka dhaqaalaha adduunka ee World Economic Forum-ka uu doonayo inuu uga qayb galo ayaa diyaaradiisii cillad ay ku timid xilli hawada uu ku sii jiray. Madaxweynuhu waxa Washington ka duulay ku dhawaad 4 saac habeenimo markii ay ku dhaweyd diyaaradiisuna saacad ka yar markii ay hawada ku jirtay ayaa qaybta cabinka ee shirka diyaaradda laga wado waxaa ka damay nalalkii guud ahaan korontadii ayaa ka tagtay. Marka qalqal ayaa yimid maadaama duuliyaashii ay hal mar mugdi diyaaradii ay noqotay. Madaxweynahana waxaa la socday qaar ka mid ah golihiisa wasiirada, la taliyaashiisa, afhayeenka aqalka cad, madaxa shaqaalaha Susie Wiles iyo wariyaal fara badan oo madaxweynuhu marka uu safar dibadda aadayo la safro. Marka diyaaradda Air Force One ee madaxweynuhu uu safarka dibadda ku aado waa diyaarad weyn oo qalabkeedu uu dhameystiran yahay. meel shirka lagu qabto madaxweynuhu xitaa isagoo hawada ku jira ayuu xiriir samayn karaa telefoon, internet ay leedahay, qalab isku difaacday leedahay. Marka diyaaraddii hal mar korontadii ayaa ka tagtay, taasina waxay sababtay qalqal weyn oo saacad ka yar markii diyaaraddu hawada ay ku jirtay oo Switzerland ay ku sii jeeday in diyaaraddii dib loogu soo celiyo Washington si taxadir loo muujiyo. Afhayeenka aqalka cad Caroline Leavitt waxay tiri diyaaraddii dib ayaa loo soo celiyay si taxadir loo muujiyo si aysan dhibaato kale aysan u imaanin. Madaxweynahana markaasi diyaaraddii waxaa loogu bedelay diyaarad ka yar oo iyaduna C-32 la yiraahdo, isla markaana madaxweynuhu safarada wadanka gudihiisa markuu aadayo uu ku aado waliba aeroboorada yaryar loogu talagalay inay ka duusho amaba ay ka degto maadaama ciladaasi aysan ahayn diyaaradda ku timid Air Force One mid isla markiiba la xallin karay. Madaxweynuhuna ay tahay safarkaasi inuu aado isla markaana shirkaasi bari inuu ka hadla ay tahay. sidaas darteed qalqalkaasi ayaa ku timid diyaaraddii Air Force One oo madaxweyne Trump iyo waftigiisu ay ku safrayeen. Marka wax kale oo dheeraad ah lama sheegin in diyaaraddii la soo celiyay lana bedelay madaxweynihina diyaarad kale uu raacay oo safarkiisina uu sii watay uusan ka baaqan ayaa warbaahinadu ay qorayaan. Marka arrintaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo asxaabta aad iyo aad u mahadsantiin. waxyaabaha kale ee soo kordho stay tuned.